wasiirka horumarinta maaliyadda jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Saacad Cali Shire oo maanta soo xiray kulankii qiimeynta iyo abaalmarinta waaxaha dakhliga ee kastamada iyo cashuuraha beriga ee bilihii July ilaa December 2020 kulanka qiimeynta iyo waxqabadka waaxaha dakhliga oo sanadkiiba 2 jeer la qabto ayay waaxahaasi ku soo bandhigaan wixii ka fulay iyo waxyaabihii aan ka qabsoomin qorshihii odoroska dakhliga ee u yaalay iyadoo waaxaha kastamada iyo cashuuraha berigu sanadkii dhamaaday ee 2020 ku talagalkii odoroskooda boqolkiiba 99 daboolay iyadoo sanadkii 2020 uu ahaa sanad adag oo xanuunka COVID-19 ku saameeyay dhaqaalaha Soomaaliland iyo guud ahaanba kan dunidaba. Munaasibadan ayaa waxa presentation soo jeediyay waaxaha miisaaniyadda, xafiiska xisaabaadka guud, kastamada, cashuuraha beriga, dhaqaalaha iyo tirakoobka iyo sidoo kale waaxda xidhiidhka dadweynaha. ugu dambeynna halkaasi lagu dhageystay talooyin iyo tilmaamo ay soo jeediyeen maamulayaasha labada waaxood ee dakhliga ee cashuuraha beriga iyo kastamada. waxaa madasha ka hadlay taliyaha ciidanka tubataariyada Cismaan Xaashi, agaasimaha waaxda xuduudda shaqaalaha Maxamed Axmed Weyrax, xisaabiyaha guud ee qaranka Soomaaliland Axmed Daawud Geedi, agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta maaliyadda jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamed Cabdi Gurxan, wasiir ku-xigeenka horumarinta maaliyadda Muuse Ibrahim Salab. ciidanka qaybta ilaalinta cashuuraha wuxuu la shaqeeyaa labada waaxood ee dakhliga, waaxda wasaaradda maaliyadda ee kala ah in cashuuraha beriga iyo kastamada waxa weeye iyo wasaarada kale oo iyaguna markay hawl looga baahan tahay sida wasaaradda gaadiidka, ganacsiga oo marka liisanada ay soo qaadayaan ama ay baqaarada oo raacina ciidan. waaxda waxaa ka go'an in sare loo qaado, la kobciyo takhasusaadka ama xirfadaha ay ku shaqeeyaan shaqaalaha wasaaradda. sidoo kale in laga caawiyo waxbarashada akademiga ah siba gobolada oo la siin doono yani qiimaha gaarka la siin doono. waxaanu qabanay 2 sanadood sanadkii 2020 waajibaadkeena saaraa xagga dhaqaalaha ama dakhliga service baa soo saaray. sanadkii ku xigay 2020 waxay nagu soo beernay cudurka dunida aafeeyay run ahaantii si qeyr caadi ah uga dabaateen oo lagu wada dabaashay. waa fikrada wadaagayba ahayd, waxay ahayd adaa qabanay waan kula qabanay waan wada qabanay. marka iskaashiga aynu hawsha madadalka aan helnay iskaashi baan ka gudubnay. kulley muxuu ahaa intiisa badanna waxaa loo sheegay xaggiina waxaad u qabateen baan u arkaya runaan dhinacayga. kulley waxaan odhan lahaa sanadka 2020 iyadoo waxaad dhacay weydeen 1.9 baan noqday wixii farqiyada ahaa ee ahaa miisaadis dhintay. wixii dhacay adduunka dhacay amba inagu dhacay intaasina maxaa u dhigantaa dee laba qaad waa tii la joojiyey. haddii qaadka aan la joojin lahayn intan iyo ka badan baa cudurkan u jirahayn aan waxaan qabaa in miisaadeennu intii la fiilay bilaabkeeda soo bixi lahayd. qorshaha waxa laga sameeyay qorshe hawleed sanadle ah annual work plan. xafiis kasta amba waax kasta maanta wuxuu leeyahay annual work plan, jilbaha la istaray, muddo laga doodayay, dibadda loo baxay, madaxda wasaaraddu ay approve gareeyeen. waax kasta annual work plan-keeda amba qorshe hawleedkeeda sanadlaha ah waxaa ka sii faracamaya qorshe hawleed shakhsi. sida uu xisaabiyuhu tilmaamay, runtii sanad adag baynu ka soo baxnay. ilaahayna wuu inagu guuleeyey. guusha ilaahay idamkii waxa aynu dadaal aynu samaynay oo had iyo habeen madaxdu isku imanaysay min xisaabiya ilaa iyo mas'uul 24 saac ilaa habeenkii la isku imanayay. mar xaaladda la eegaya dhaqaalaha, mar la eegaya maamulka miisaaniyadda, sidii la iskugu sargoyn lahaa baahida miisaaniyadda ee taalla iyo xaaladihii adkaa. waxaan xasuustaa kulamo aan kala kac lahayn oo dakhliyada dadaalkooda loogu fikirayay, oo daboolista miisaaniyadda loogu fikirayay, oo iswaafajinta kharashka iyo miisaaniyadda loogu fikirayay, oo iskaashi ah oo aan loo kala kacayn oo wasiirku runtii nagu hogaaminayay. ilaahay mahadiina ugu dambayn inta aad arkaysaan
si kale markaan u dhigno miisaaniyaddii isdabooshay go'aamadii bulshada lagu taageerayay ee xukuumaddu ay qaadatay haddii lagu darana plus iyo surplus dakhli dheeri uu soo baxay ayaa inooga soo baxay gebagabadii shaqo sanadeedkii 2020 shalay dee arrimuhu way noo qaybsanaayeenoo qiimaynta iyo soo bandhigista iyo dhegaysiga idinkaa lahaa maantana waa laydin warramayay runtii si weyn baa laydinku warramay hadday tahay agaasimo waaxidada waaxda xidhiidhka dadweynaha waaxda miisaaniyadda waaxda dhaqaalaha iyo tirkoobka waaxda kasta labadiina waaxood xisaabiyaha guud waxa laaliyo xog lahayo oo dhan hadday tahay work planka hadday tahay strategic planka hadday tahay waaxda shaqaalaha war baa laydinka dhargiyey ujeeddada koowaadna waxa weeyaan inaynu isla soconno oo runtii aynu dee level wada gaadhno ah inaynu wax wada ognahay oo ka war heshaan qaabka iyo qorshaha iyo nidaamka ay wasaaraddu u shaqaynayso runtii waxaan filayaa inaad ugu dambeyntiina waxaanu dhegaysanay talooyinkiina iyo ra'yigiina kolka maanta inta badan xagga xarunta wasaaradda iyuu ka socday warbixinuhu aad iyo aadna ugu mahadsantihiin sida wanaagsan u dhagaysateen dee waananu jecel lahaa inaad weelaysaan oo maaragtay aad tihiin wakiiladii wasaaradda ee gobollada dadkii baa ku noqonaysaan shacabkii baa ku noqonaysaan in wacyigiina iyo ufuqiina uu noqdo dad la jaan qaadaya ka wasaaradda dambeyn waxaa kulankaasi soo xidhay wasiirka horumarinta maaliyadda jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Saacad Cali Shire oo madashaasi ka jeediyay hadallo dardaaran iyo mahadnaq isugu jira ciidan isma lahayn si ugu guuleysanay baynu ugu guuleysanay maalin kaliya mushahar lama waayin lacagteena qiimaheedu hoos uma dhicin sicir barar inama soo salaamin cid aynu deyn ka qaadana caalamka waxay nagu leeyahay ma jirto marka horta runtii waxa intaas oo inoo suurtageliyay dadaalkii aad samaysteen aynu wada sameynay gidigeenba waan ka mahadcelinayaa mar kale intaasi kadibna waxaa madashaasi shahaado sharaf iyo abaalmarino kala duwan lagu guddoonsiiyey maamulayaasha gobollada iyo degmooyinka ee waaxaha dakhliga cashuuraha beriga iyo kastamada